xaddiga kulaylka xeryaha qaxootiga Dadaab ayaa gaaray heer aad u sarreeya. Cabirka heerkulka cimilada xeryaha Dadaab waxa uu marayaa inta u dhaxaysa 40 ilaa 39 digrii, waxaana kulaylka jira maalintii uu gaaraa heer aanay dadku socon karin, taasi oo sababtay in dadku ay aad u isticmaalaan waxyaabaha qabowga ah sida barafka, jalaatada iyo cabitaanada qabow si ay kaalmo uga dhigtaan. Haddaba dadka xeryaha qaxootiga Dadaab ayaa ka hadlay saameynta uu ku yeeshay kulaylka aadka u daran ee xilligan ka jira xeryaha Dadaab. xasan Cabdullaahi Shuqaal lahaa oo ku magac dheer Xasan Shabu. kulaylka aan ku jirno zaad weyn, roob ma haysano, biyo ma haysano, shaqo ma haysano, ciyaalku waxaan siisano ma haysano. ebel ilaa 12 ku shaqayn jira hadda 6 saac bixi ka dambeeyo waa kala cararayna magaalada waa ka cararayna kulayl aawdiis. magacaygu waa Gaashow Imaan Daawud, waxaan ahay xaga dheer hoos jeermaan. wallahi horkulka dib weyn buu keenay haddaan qaxootinahay. qorraxdii ilmihii iskuulka way aadi la'yihiin, dugsiga way aadi la'yihiin, kulaylka baa saa'id noqday, ilmaha kulayl bay dhexda ugu soo dhacayaan. midda kale biyihii baa cariiri nagu noqday, biyihii baa fogaaday, dadkii baa bixii la deeqsin la'yahay, hay-addii way deeqsinay, matoordii way wada hallaabayaan. marka heerkulkan mid aan weli aragnayba ma ahaba intaan xaga dheer deganin. marka aad iyo aad buu yani saameyn weyn noogu yeeshay haddaan qaxootiga xaga dheernahay. Cabdi Maxamed Ducaale waxa uu ka mid yahay shaqaalaha warshada barafka iyo jalaatada ee Bilaal ee xerada qaxootiga Xagar Dheer. waxa uu ka warramayaa wax soo saarkooda barafka ee xilligan maadaama lagu jiro waqti aad u kulul. magacaygu waa Cabdi Maxamed Ducaale, waxaana ka shaqeeyaa warshada Bilaal. cimiladana aad bay u kulushahay, marka cimilada saa u kulushahay barafka xoogaa ayuu waa dhigmaa. inkastoo macnaha kuleelada hore xoogaa uu macnaha sida uu u socon jiray u socon aad muhiimad gaar aad buu leeyahay, oo sida baraf haddiisan islaayna saacadaha oo kale dadku waxaa khatar buuxiyaa. dhinaca kale Idris Khaliil Aadan oo ka mid ah dhaqaatiirta xerada qaxootiga Xagar Dheer kana howlgala xarun caafimaad oo lagu magacaabo Albaqra ayaa ka warbixiyey waxyeelada caafimaad ee uu keeni karo kulaylka aadka u daran ee xilligan ka jira xeryaha Dadaab. qaxootiga waxaa ka jira kulayl fara badan, kulaylkaas oo bulshada ay aad uga cabanayso oo aad u dhibay. kulaylkaas waxaa keeni kara problemka kulaylkaas waxaa ka mid ah in qofka uu macna kocta iyo kulayl dareemo. waxaa kaloo jira heartbreak ama micnaha wadna garaac. waxaa kaloo jira qofka inuu dareemo dhidid fara badan. waxaa kaloo jira qofka inuu dareemo heart failure ku dhacdo oo soo garaa kulaylka dartiisa. waxaa kaloo dhici kara qofka in maaragtay qofka uu problem ku noqdo kulaylka farada badan. waxaa fiican xilliga qoraxda ay zaid u kululaato, waxaa fiican qof walba meesha xilligaas u joogo inuu ku nasto. haddii magaalada aad joogtid xilligaas ama meel ganacsi aad joogtid meeshaada inaad ku jirto halkaada ku nasato. haddii xaafadda aad joogtid magaalada danka leedahay inaad qoraxda inaad qabowsato xilligaa oo xilliga qoraxda qabowda magaalada soo aad si kulaylka farada badan uu kusugu soo gaaro. xaafadda markii aad joogto kale waxaa la raadsadaa meel yar qabow oo mahar wanaagsan ama meel balbalo oo fiican oo la hagaajistaa si aad ugu nasato meeshaas. dad badan ayaa jira xanuuno gaar ah qaba sida qofka sokorta qaba, qofka dhiigkarka iyo dadka suuxdinta qaba iyo dadka micnaha suuxdinta iyo xanuunyo lamid ah qaba. dadka sokorta qaba iyo dadka dhiigkarka iyo dadka suuxdimaha qaba waxaan kula talinayaa in xilliyada kulaylka aysan meel bannaanka aysan soo bixin, waxyaabaha qabowga iyo waxyaabaha dhibka geysanaan aysan isticmaalin. Mustaf Maxamed Xuseen, Murtiile, xeryaha qaxootiga Dadaab, gobolka Waqooyi Bari, Kenya.